بسم الله الرحمن الرحيم. سلام الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم عندنا درس جديد وبإذن الله سنتعلم اليوم أسماء الفواكه. إن شاء الله تعالى maanta waxaan baranaynaa أسماء الفواكه. qudaarta magacyadeeda ayaan baranaynaa. marka qudaartu waa laba nuuc oo waxa weeye qaybna waa la isla yaqaanaa oo dadkoo dhan ayaa isla yaqaana oo meel walba ayaa laga isticmaalaa. qaybna dadka qaarkood ayaa yaqaana oo macnaha meelaha qaar ayaa laga isticmaalaa. marka waxaan sheegaynaa qaybta la wada isticmaalo oo dadkoo dhan ay wada yaqaaniin. midka ugu horeeya aan soo qabanayo wuxuu yahay rummaan. rummaan waxaa loo yaqaanaa rummaanka caadiga ah. dadka qaar inay af Soomaali kale u yaqaaniin waa macquul, laakiin Soomaalidu hadda waxay u isticmaalaan rummaan. magacaas rummaanka ah ayaa loo wada isticmaalaa, Carabi iyo Soomaaliba rummaan. midka ku xiga aan soo qabanayo wuxuu yahay tufaax. tufaax isagana waxaa loo yaqaanaa tufaaxa caadiga ah. Soomaali iyo Carabiba waxaa loo isticmaalaa tufaax. marka waa arkaysaa oo marna waa cagaar, marna waa gaduud, marna waa jaalle. midka xiga aan soo qabanayo wuxuu yahay biddeeq. biddeeq waxaa loo yaqaanaa qaraha ama qaraha ama xabxabka ayaa waxaa loo yaqaanaa biddeeq. dalkeena Soomaaliya wuxuu ka baxaa asagoo wareegsan. waxaan arkayaa asagoo maaragtay afar gees ah. wuxuu ka baxaa Japan ayuu ka baxay meelahaas. sidoo kale asagoo saddex gees ayaa jira. sidoo kale waxaan arkayaa asagoo maaragtay gaduud baan ahayn oo jaallo ah, meel laga isticmaalo ma aqaan. midka xiga aan soo qabanayo wuxuu yahay mango. mango waxaa loo yaqaanaa cambaha ayaa waxaa loo yaqaanaa mango. midka ku xiga aan soo qabanayo wuxuu yahay cinab. cinab waxaa loo yaqaanaa cinabka caadiga ah. asagoo cagaar ah ayaa jira intuusan bislaanin ka hor weeye. sidoo kale asagoo gaduud ah baa jira, waa markuu bislaado. sidoo kale asagoo madow ah baa jira. midka ku xiga wuxuu yahay moos. moos waxaa loo yaqaanaa mooska caadiga ah. dadka badankood waxay isticmaalaan raashinka ayay ku cunaan. dadka qaarkood waxaaba laga yaabaa inaysan raashinka cuni karin haddii uusan raashinku moos uusan lahayn ama moos. midka ku xiga aan soo qabanayo wuxuu yahay jazar. jazar waxaa loo yaqaanaa karootada ayaa waxaa loo yaqaanaa jazar. midka ku xiga aan soo qabanayo wuxuu yahay badaadis. badaadis waxaa loo yaqaanaa baradhada ama barandhada ayaa waxaa loo yaqaanaa badaadis. sida badan waxaa lagu sameeyaa suqaarka iyo waxyaabahaas. midka ku xiga wuxuu yahay damaadim. damaadim waxaa loo yaqaanaa yaanyada ayaa waxaa loo yaqaanaa damaadim. midka ku xiga aan soo qabanayo wuxuu yahay laymuun. laymuun waxaa loo yaqaanaa liindhanaanta ayaa waxaa loo yaqaanaa laymuun. sidoo kale waxaa jirta burtuqaal. waxaa loo yaqaanaa liin ugunjida ama liin macaanta ayaa waxaa loo yaqaanaa burtuqaal. midka ku xiga aan soo qabanayo wuxuu yahay laymuun alhindi. laymuun alhindi waxaa loo yaqaanaa liin balbeelmada ayaa waxaa loo yaqaanaa laymuun alhindi.
midka ku xiga soo qabanayo wuxuu yahay baamiye. baamiye waxaa loo yaqaanaa baamiyaha caadiga ah. baamiyaha ayaa waxaa loo yaqaanaa baamiye. midka ku xiga soo qabanayo wuxuu yahay basal. basal waxaa loo yaqaanaa basasha caadiga ah. laba qayb weeye, ayadoo gaduud ah ayaa jirta, sidoo kale ayadoo cadaanana way jirtaa. midka ugu dambeeya soo qabanayo wuxuu yahay thawm. thawm waxaa loo yaqaanaa toonta. toonta ayaa waxaa loo yaqaanaa thawm. marka su-aalaad yar ayaan isweydiineynaa, oo waxaan isweydiineynaa 3 su-aalood. saddexdan midkeebaa bidiiq ah? bidiiq waa kee saddexdan? bidiiq waa kee saddexdan? midka koobaad miyaa, mise waa midka labaad, mise waa midka saddexaad? 10 second ayaa lagu qabanayaa insha Allah. commentiga uga soo jawaab. su-aasha labaad, baamiye waa kee saddexdan? lambar 1, lambar 2, lambar 3. 10 second ayaa lagu qabanayaa. su-aasha saddexaad ahna tii ugu dambeysay waa kee basal? basal waa kee? lambar 1, lambar 2, lambar 3. 10 second ayaa lagu qabanayaa. intaan ayaan ku joojinaynaa cashirkeena maanta. fi amaanillah. fadlan haddii aad nagu cusub tahay channelkan subscribe saar, gambaraalka furo si aad u noqoto qofka ugu horeeya ee daawada muuqaalada diiniga aan baahino. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaaladeena. like na saar, waxay noo tahay dhiirigelin, oo la wadaag asxaabtaada khayrka jecel.